فيديو مالنت آثمية وكوسا بسنا ساحب يا اللي حرفض وفي عن لبض كون لحظة واتك دلنيرة بدل ما حكب بحيان كومنت أتر بدل لحظة حرفض عن شيء ما حرفضك اللي كومنت يقول سكر أو ده هي مسار كل ماذا فاركس ماذا دروب شيبين ماذا فيديو اللي تين جرافيك ديزاين يوب ديزاين وحنا صاحب الحقيقة إن ما أنت هالكان إذا كل شيء ريل تروث والله بدل كون لحظة واتك واحد بدل حرفضي يسكب بدلين مركز هذا كل مقال كان وحنا صاحب إن كل ده عشان سكيل أو أيجنا مهمة أنت نقول نصيح بالمقال هذا بوقع سكول كان حرف لي دوت وحنكون بقول كيبا لبعتن قيمة دمز سنة عصب إنك بدل كنت كورس وكتير دخلت معلم وكورس أونلاين دومينك وكان حرف لي دوت أما سيدو كل واحد كسر المكان صاحب نمبرك قدام تطلع هذا قصة إيش حاجة واللي بيلاش مصادرين أو كمان Thank you Vobi. haddii aad ku isticmaasho waafi lambar UK ah Vobi wuxuu ku sahlayaa inaad si degdeg ah ammaan ah oo sahlan aad lacag u dirto qoysaskaaga Afrika ma jiro culays mana jiro waqti lumis Vobi si toos ah kaarkaaga UK lacag u dirso حرفدنا كود waxa saxbiyal waa forex saxbal waa real skill waa skill jirta xaqiiqa laakiin qof kasta oo ma shaqeyso macnaha qof kasta kuma guuleysto inuu noqdo profitable trader xaqiiqda saxbal suuqa forex waxaan ku soo koobi karaa saddex shay kali ah waxa dhan saxbal boqolkiiba 80-90% dadka lacagtooda way ku dhumiyaan forex sidoo kale saxbal waxa dhan risk management matters more than strategy macnaha laga wado risk management uu ka muhiimsan yahay strategy badan baa jiro qaar waxa isticmaal low order qaar waxa isticmaal ICT qaar waxa isticmaal price action waxa soo dhan saxbi waxa ka muhiimsan waa risk management sida aad iska ilaalin lahayd lacagta suuqa oo qasaar lahayd reality saddexaad oo forex sabsan waxa weeye si dhaqso lacag looga sameeyo oo ku gumin ma jirto okay marka sidaad hadda ku sheegay waa saddex negative dadka markuu ku guuleysto oo profitable trades kana ayagana waxa laga rabaa qodobadan soo socda forex saxbi waxa ku guuleysan karo qof discipline qofka leeyahay weeye sidoo kale waa inuu leeyahay saxbi patience iyo dulqaad waa inuu leeyahay sidoo kale waa inuu si ayar oo suuqa u galaa oo suuqa fahmaa oo samarka hore ku degdegin long term future ka fakaro marka saxbi forex kan waqt dadkaas weeye dadka lacagta ka sameeya laakiin suuqa hadii aad baran hadii dulqaad iyo patience aad yeelan hadii discipline sax aad yeelan risk management aad si fiican u baran suuqa lacagta way ka caawinaysaa marka forex waxaan ku soo koobiyaa waa xirfad jirto waa xirfad laga shaqeysto laakiin qodobada hadda aan ku sheegay bay muhiim u tahay saxbi maan lawad anoo neereeyo joogo bibi ismaal waxaan ka iibsanay khamiis dhalinyaro yaraa baa marka dukaankiisa galay khamiis baa ka soo qaatay marka waxaan ku waxa la isku fiiriyo marka feature room baa ijmaamay isla qol yar oo asaga leeyahay ku dhigan ah feature roomkii marka galay yar baa marka meesha waxa la fadhiya computer asal dukaanka isla leeyahay yarka kale ku jiro marka kan kale waxa ku jira break buu ku jira marka yarka kale uu trade garanaya forex buu ka trade garanaya marka inta khamiiskayga aan inta gashanaya baa arkay ninka computerka ku sii jeedo oo forex ku jiro waa la hadlay wuu igartay inaan mataqaana galay bashir ahay waa islaan maxaa sameynaysaa ku nii wixii waa trade garanaya dukaankaana wixii aniga wiilkaas istarle marka ninkan breakiisii buu trade garanaya side hustle buu sameeyay marka si saxda oo looga shaqeysto forex waa qaab runtii aad baa ugu farxay dhalinyaro dukaan iskala oo bis caadi ah sameeyay e-commerce caadi ah dukaan u furan yahay part time kiisana hustle sameeyay hustle ninkan waxa la ugu fiican weeye runtii aniga aan aad ku jecelahay aan guul ku soo gaaro qofka inuu sameeyo side hustle sidoo kale saxba kafayada neero waxaan ku arkay dhalinyaro badan hay'ado u shaqeeyo oo trade garanaya qaarkood 2,000 3,000 4,000 dollar qaataan aad sameeytaan crypto iyo forex ka trade garanaya soo marka waa dareemi kartaa marka side hustle la fiican bay develop garanaya marka waxaan ka wadaa forex saxba waa xirfad xaqiiqi laakiin discipline baa u baahan tahay patience bay u baahan tahay tartiib small ina suuq u baahan tahay ila birta u baahan tahay long term ahdaafna ka yeelatid markaas forex ku shaqeynaysaa xirfadan lama saxib la waxa weeye waa drop shipping iyo e-commerce dad badan waxa dhahan 2016 ka drop shipping waa dead laakiin boqolkiiba dead ma ahan laakiin qaabka hore loo sameeyay jir ama all way hore loo sameeyay jir waa saxib wuxuu yahay dead drop shipping saxib aad buu adag yahay sababtu aad kan waxa weeye dadku si fiican ma fahmin dadku waxa la kala maal yaani ku mashquulsan yihiin suuqa si sax ma sameeyaan sanad u dhameysay saxib dad badan oo drop shipping sameeyay kali waxa sameeyay copy and paste products in sameeyaan iyo aad xayis in sameeyaan products soo qaadanaya copy paste way soo geliyaan website sameystaan kadib ma taqaana xayis ku sameeyaan drop shipping qaabka uma shaqeeyo saxib si sax ah drop shipping u shaqeeyo waxa weeye brand baa u baahan tahay muhiim weeye Shopify store kaaga in aad si sax qurxan u sameyso by the way hadii u baahan in website lagu sameeyo shirkaddan waa la xiriirtaa Naqshad Prime aniga iyo teamkayga iskala waa shirkad ku dhow sax 4 sano sida Soomaali u sameeyay Shopify waa kamid ah WordPress waa kamid ah naqshadprime.com baa laha la soo xirada marka waxaan kamid ah website ku muhiim marka drop shipping bilaawis website kaaga market kaaga la soo shaqatagaysid waa muhiim weeye product horta waxa ka muhiimsan waa branding marka branding kaaga inuu ku hagaagsan yahay website qurux badan SEO fiican leh logo fiican leh coloring iyo branding uu ku hagaagsan yahay everything uu ku hagaagsan yahay waa muhiim ka labaad sax waxa waa niche focus inaan leedahay waa in mataqaana product gaar
gaar ama niche aad iibinaysid aad shaqo kulli noqon baa laga rabaa hadii aad store-ka Shopify ama dropshipping inuu ku guuleysto suuqan saaxiib horta waa lagu jiraa waa very competitive market weeye dad badan saturated weeye مثلا aad baa waxa way saaxiib loogu jiraa laakiin waxyaalahan ku sheegay waxyaalaha unique ka dhigi karo bay ka mid tahay ugu dambeyntii waxa laga yaabaa content iyo trust labada qofka isku hela marka sidaan ku sheegay branding niche focus content iyo trust qofka isku hela store-kiisa dropshipping oo guuleysanay laakiin qofka copy and paste board sameeya marketing sameeya ads ma yani sameeya lacag uma ka qasad marka dropshipping horta sidii hore ma ahan suuqa waa buuxa waa saturated very competitive market dad badan baa ku jiro waa red ocean waa la buuxa laakiin qofkii si jecel oo rabade oo aniga dropshipping baa rabaa inuu noqdo taxaas duu raacay oo sameysan karta xagee ku baran kartaa xirfadahan ku sheegay dhan bay dhaway si practical way ah waxa uu baran kartaa iskuulkan xirfadley.com booqo domainkan ama numberkan ka soo dalbo skill ka soo baahan macallin khabiir ah ku baraya dropshipping ka mid ah ugu dambeyn si xabeel dropshipping waa business model weeye ee skill ma ahan taasna ma isla fahanaa baashan skill ma ahan waa business model la isticmaalo weeye marka kaliya waxa baahan inaad fahanto marketingka brandingka iyo customer experience inta hadii aan fahantid dropshipping uu ku shaqeynaya waana guuleysanaysaa xirfadeena saddex saaxiib waxay waa video edit 2016 ka saaxiibayaal contentiyada waa meelaha la isku dagaala doona weeye sanadka hadda la soo dhaafin aad loogu ogaaday video editing saaxiib waa one of the valuable skills ka 2016 waxa laga rabaa qofka mataqaan inuu barto muuqaal samaynta saaxiib hadda waa muhiim weeye hadii aad bis leedahay hadii aad rabtid mataqaan in hadda ganacsi bilowdi hadii aad in adiga naftaada self brand isku sameeyso marketing naftaada u sameeyso hadii aad dadka inay ku bartaan waa in muuqaalada taqaan si loo sameeyo muuqaalka hadda aan daawanaysaan waxa ii sameeyay mid kamid ah teamkeena ka tirsan iskuulkeena iyo dhammaan businesskeenna muuqaal kasta waan duubaa ayaga u dira si fiican oo qurux badan energy hadda ka daawanayso kala bi ugu soo edit karayaan marka anigana hawl fudud bay tahay ayagana lacag bay ka helayaan marka ama shirkad baa sameysay kartaa agency oo muuqaalada sameeyso kala editing kala dadka dhama kala socda youtuberada hadda kuwa business kala xoogaa busy ka noqdeen mar raba marka shaqo badan waqti inuu ku bixiyo video mataqaan yara way scaling iyo mataqaan grow baa businesskiisa soo marka shaqooyin yararka editing-ka waxa fiican in dhalinyaro waqti hayo energy hayo shaqana u baahan in loo dhiibo marka saas aan dadku most youtuberada boqol marka editing waa muhiim wuxuu ku fiican adiga horta business bilowdid iyo social media-haaga uu ku anfacaya xirfadaada adiga sameeysanay aan business baa furanaysa agency baad furanaysa dad baad u sameynaysaa ama sidoo kale waxa noqonaysa freelancer oo marba dad kala duwan baad u shaqeynaysaa xor ah skillkan saaxiib bal it can travel anywhere meesha artid baa kula safri kartaa xirfadda kaama tagayso meesha artid adduunkan waa ku shaqeysan kartaa dhalinyar hadda waxay la soo hadla joogan qurbaha wadamadan Asia aad u guuray oo shaqooyin haysta hadda yar kamid teamka aniga la shaqeeya wuxuu u guuray wadamadan Southeast Asia buu u guuray dhowr shaqo haysta aniga aan kamid ah company marketing qaabilsan yahay dhowr shaqo kale lagu haysta in ka fiican bishi soo gala marka wuxuu u guuray Southeast Asia soo lifestyle fiican u raadsado dhaqaalaha u raadsado macnaha freelancer-nimada muhiim weeye in ka fiican waa ka helisa waa xoriin helisa skillkan afra saaxiib waa graphic design saaxiib still waa muhiim iyo important laakiin AI changed everything ba game changer buu noqday AI marka maxaa laga baahan yahay hadii aad tahay wax graphic design kaliya Canva kuma filna hadii aad tahay graphic designer hore inay updates ku sameeyso ba u baahan tahay hadii aad marka 2016 inaad noqoto qof graphic design khabiir ka maxaa laga baahan yahay ko waxa laga baahan design plus AI tools dhan inaad taqaan graphic design muhiim weeye wax dhahan AI-da dadku shaqada kama qaadaysa ay dadka aan la qabsan bay shaqada ka qaadaysa marka hadii aad graphic design old fashion tahay aad AI-ga la qabsan lagu baahana waa designada ma soo baxaya because waqti badan oo ka bixi lahaa AI ku safiranaya creativity badan buu ku sameeynaya wax qurux badan buu ku siinaya faster waa cheaper waa faster way marka maxaa laga baahan yahay in AI-da la qabsan markaas adigii way energy AI-di agent buu ku noqonayaa ChatGPT kala ama waxyaalaha mataqaan lagu sameeyo Canva kala iyo adigu ku shaqeynaya marka waqti buu ku safiranaya branding iyo fundamentals sidoo kale waa inaad taqaanid social media visuals waa inaad taqaan hadii aad noqoto game changer AI mataqaan ku shaqeysta graphic design basic UI and UX sidoo kale waa inaad taqaan marka Canva keedo kuma filna xirfadii hadda ku sheegay baad sameynaysaa waa la qabsanaysaa marka qof graphic design still saaxiib yar waa important weeye laakiin ka important marka AI qofka fahamsan yahay taas important xirfadana ugu dambeeyay saaxiib waa sameynta website design saaxiib waa foundation skill weeye xirfad kasta ku jira aqoon kasta laho waxa muhiim ah in aad wax ka fahamsantahay ugu yaraan web design hadii aad aqoonin waa in aad fahamsantahay website sameynta wax dhan saaxiib 2026 business aan lahayn website waa business aan la jirin yes no website is equal to no sales bid marka muhiim weeye in aad website leedahay dunida digital bay noqotay soo wax kasta way digital global soo marka businessadina 100% digital bay u guureen marka adiga shakhsiyan baa laga baahan yahay in aad digital noqoto ana waxaan saaxiib yaal damoor oo qofka digital noqdo waa damoor uu guuleysto dhaqaale badan sameeyo of course soo marka adiga updates ka digital laga rabaa aad digital gareysid maxaa laga baahan marka in aad barto website basics ka muhiim in aad baratid landing page ka ayagana waa muhiim in aad wax ku fahamsan tahay payment oo muhiim tahay oo sida loogu xiro ayagana in aad fahamsan tahay qasab ma marka
marka inaad taqaan website sameyn dad waxa jira busy ah ana waxa kale kan xirfadahan dhan isku bareek hadii aad dhaqaaleeyso sidoo kale waa lagu sameyn karaa saasa fudud hadii aad dhaqaaleeyso laakiin hadii aad dhaqaaleyn qof dhalinyaro iska taashiid ah inaad bartaa ku filan laakiin hadii dhaqaaleeyso ka startup sameynayso waxyaalo kale kuma soo business kaaga dee korogareynaya shirkadaha website-da samee agency kale xiriir shirkadana ka badan naqshad brand.com numberkan leedahay website-kada domain-kada booqo waxa gashaa page-ka awood qorantaa website-da waaweyn la sameeyo domain loo sameeyo ku jira marka la xiriir website-kaaga Shopify ha noqdo e-commerce ha noqdo school ha noqdo wuxuu rabo ha noqdo halkaas kala xiriir halka ka soo dalbo waa lagu sameeyaa shirkadda ana maamulo ka ah laakiin team ba aniga la ka shaqeeyo oo si toos ah kugu sameeyo insha Allah website wadamo kala duwan oo jooga freelancers-ka xirfadaha ku sheegay saxba waa muhiim laakiin marka waxa isku dayay inaad barto marketing-ka branding-ka ee ayada waxa soo dhaadii isku dayid oo sidii aad u fikirtay saxba qof business owner ah waa guuleysanaysaa 2020 waa yahay sabab maleen barto skills wali basic ah jiro editing-ka graphic design web design marketing e-commerce waxaas basic way guys oo baahan in taqaan asimsid hadii aad dhaqaale leedahayna dee waa dad baad kaliisan kartaa ku beekan karo ha ilooban saxba YouTube-ka inaad subscribe saarto iyo page-ka anaga daawanaysid sidoo kale iskuulkeena ka warhay practical way u baran xirfadahan kulka xirfadadku aad baan salaamay ciao ciao